waxaa magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika soo gaaray wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha xisbiga dadka Professor Saciid Ciise Maxamuud waxaana safarkiisa ku wehelinayay fanaanka qaranka Soomaaliyeed Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ee Orlando International Airport magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika iyadoona ay ka soo qayb galeen soo dhaweynta wafdigani heerka sare ah boqolaal qof oo kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Johannesburg iyo nawaaxigeeda halkaas oo ay u lulayeen calanka qaranka Soomaaliyeed wafdigan uu hogaaminaya gudoomiyaha xisbiga dadka Professor Saciid Ciise Maxamuud ayaa markii ay soo dageen waxa loo galbiyay Hotel Nuro International isagoo kula hadlay qaybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika dhinaca kale waxa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka golaha fulinta ee jaaliyada Somali Community Board ee dalkani Koonfur Afrika Abukaata Ismaaciil Cabdalla Soomane waxaana ugu horreyn u mahadceliyay imaanshaha wafdigan isagoona ballan qaaday ka jaaliyadahan inay diyaar u yihiin inay la garab istaagaan taageero hil iyo hooba musharaxani ayaa sheegay in uu doonayo in Soomaalida iyadu dawlad dhisato aanan wax loo soo dhisin markasta waxaana haatan magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ka soconaya qabanqaabo xoogan oo musharaxani ku doonayo inuu kulamo kula qaato dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika iyadoo uu dadku u sharaxayo barnaamijkiisa siyaasadeed dad maartay runtii wadankan xilkiisa iyo dhibaato badan ku qaba horumar fiican ka sameeyay in wax badan waxaan jecelnahay maartay in la wadaagno anaguna aan kaga warramno waxa maartay xagga dalka iyo wadanka kariimka xagga wadanka Mareykanka iyo meelaha soo marnay waa masantii waxaan jecelahay maartay socdaalkaygana faahfaahin والله waxaan filayaa maartay maxaa wax la yiraahdo rajaa balaaran maadaama ay meeshan degan yihiin maartay umad Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad maartay maxaa wax la yiraahdo wanaagsan waxaan jecelnahay maartay inaanu kaga xog waranno wixii aan soo marnay anaguna aan sharaxno xisbigana wuxuu yahay qalbiga wanaagsan iyo niyada wanaagsan hadii runtii loo halgama in dadka Soomaalida maanta meel kasta ay joogaan inay awood leeyihiin dhaqaale inay awood waayagnimo leeyihiin in awood ay leeyihiin maxaan ku dhahdaa ay iyaga hadii isku tashtaan isku filnaan kara meel kasta ay joogaan marka waxaan leenahay soo dhawaada shacabkiina ku soo dhawaada dalkiina labaad ku soo dhawaadmo taageeradeena ku soo dhawaada bahda saxaafadda dhalinyarada kuwa sportiga wax garadka ganacsatada waxaan isleenahay caawa looma iyo hablaha Soomaaliyeed dadkooda inkasta iyo muuqan halkan hadda garoonkan ay joogeen marka waxaan leenahay waxa la waxaad naga rabtaan si buuxda u heli doontaan hadii Ilaahay yiraahdo adeegiina iyo daadihintiina team idan runtii ku haboon dadkana u xilsaarina gacanta ku haya farm hadda laga bilaabana waxaan isleeyahay insha Allah shaqada si wanaagsan ay u socon doontaa waana mahadsantihiin si kastaba ha ahaatee musharax Professor Saciid Ciise Maxamuud ayaa ah musharax u taagan xilka madaxweynenimada Soomaaliya sanadka 2010 bisha 8 hadii uu ay baydmo Cabdinaasir Soomane Universal TV Johannesburg